waxaan maqlayay Muuse musuqmaasuqa diidaya iyo cali marreexaan ayaa musuqmaasuqa ayaan dhaweyto maxamed kaahin baa shalay ta hadlaya wuxuu wasiiradii ugu wadankan wax ka xaday ayaa wadan la socda de kulmiye ahaayeen marka maxamed wuxuu cadeynayaa in kulmiye boobay wax waayo markuu ninkii ugu adkaa ka tagay inay ka daba ooyaan Muuse anigu waxaan leeyahay cali marreexaan oo dhulkii haray oo dhan iibiyay oo dilaal gabigiisu waa dilaal wadankan wuxuu ka yahay waa dilaal ayaa hadlaya qaar ka hor ooyaya anigu waxaan qabaa wadadii ceergaabo meeshii booliiska dagaalka gurigii booliiska burco berbera meel kasta uu boobay Muuse dhowr iyo 50 guri buu ku Muuse haddaad musharax tahay horta celi beertaad hargeysa ku leedahay dawladdu leedahay boobtay celi 70kii block ayaantii wata lagu doortay marwadii cigaal baad dhulka haystaa waxaan anigu jecelahay nimanka wada ceebtaasa ee shaqadooda quri ahaydna reeraa isku diraan aanay maanta cid isku diri karaynin inuu Muuse waqtigiisu dhamaaday inuu adkaan haduu yahay nin yahay bal ha isku daya ka dambe inuu shaana ku qaado waa loo diyaar garoobiyo afka daran baa lagu hadli reerana istilmaayaan cidnana iskuma diri karo kulmiyana corruptionka aabihii weeyaan bal dad miyaad aragtay dad wada ceebaho gabi meesha la taagtaabo waa ceeb wadankiiba iyaga dhacay waxa meesha u gasheen mujaahid baanahay waxaad u gasheen inaad beeraha dawladda haystid iyo guryaha dawladda hadhow tana gobol tagtid marka lagu soo dhaweeyo reerii ku soo dhaweynayay adiguna aad gabiilay xafiisyadooda ka xidhid waxay kula tahay inay raganimo taas tahay waa reeraha ceebaynin reerkana waxba uma haysano adiga laakiin inaad tahay baan ku tusaynaa halkadu soo socotay finalkaagii haddii wax allaala wax dhacday dib lagaaga xaraaji waayo madaxweyne inaad isu sharaxdaad istaahilin cali marreexaan iyo low lifes gabigoodba ku nool dilaalnimada dhulka haddaad tiraahid dhulkaagii kaalay oo iibi wadan ku soo arkay halkan waa kuwa iibinaya iyo kuwa ka daba ooyaya waxa faan u ah inay reeraha kala qaybiyaan inay yiraahdaan naka wax soo qoladaasi maaha inay yiraahdaan waa Soomaali farmaajo u socda farmaajo adiga dilaalo dekada la iibiyay adiga barbaraf adiga iyo farmaajo xamar idinka iibiyo maalin ka soo taga ceebbay ummadan ku tahay in kolba la isku turturo xamar buu hebel idinka xamar wax ka dhigay xamar suuligay noogama duwana haddii la doonayana adigoo miskiinan gacanta ku qaban la ku geyn lahaa saaxiib adiga dilaala oo berbera wax la iibiyay oo xamar baa lacagta kala qaybsataan idinka dawlad jilicsan helay adiguna waxaad ku faanaysaa waxa dawladii kulmiye qabataan sii wadaya waxa weeyaan boob iyo dhac iyo berberaan hoostago iyo dadkaygan kala shakisiyaan qabiil u kala saaro anigoo sanka iyo madaxa sare u taagaan in iska dhigaya dilaalin yaryarna waan soo kaxaysanaya oo dilaala dadka oo wax allaala waxa yihiin rag aanay kabtooda gaareen kolba ka hadlaya ayaad keenaysaa haddaad intaa raganimo mooday rag ismaydaa arag hadday 25 sano kugu badisay inaad dadkan isku dirtid oo aad minid kastaba kala saartid oo aad ku boobtid shacabka 50 guri aad ku boobtid shacabkii magaalada state house-ka masaakiinta ku jirtaad adigu laan loorutaad ka kiraysay oo la og yahay hadday kula tahay inaad xiniyo raganimo halka ku gaadhay Muuse reerana iskuma diri kartid reerkaagana uma hadashid reer ma tihid nin hantida boobaya tahay kii ugu dhawaayay u soo halgamay ragii ugu adkaa gaajay kugu horbaxtayaya ad magacooda ku boobtay maanta inaad adna lagu soo dhaweeyo ood weyn oo reer kaarbid lagu dhigo adna ad ka soo xidhid xafiiska gabiilay hadday xiniyo noqotay annagu ka xirimayno reerka waanu ixtiraamayna laakiin adiga geesi haddaad ahayd hal lagu helo geesi haddaad ahayd hal lagu helo rag baad ku daba noolay magacooda sidataa raggii ugu adkaay kugu horbaxtay weeyaan iyo ragga waaweyn ee jooga cali marreexaan iyo cadaani iyo waxa ka daba ooya iyo dilaaliinta adminidba meesha soo martaan dawladaba ad leedahay kaalay oo bal meesha aragtay mid soo iibin haddana ad musuqmaasuq ka hadlaysa adeer dhulka shacabka celi hargeysa beertii ad tiri markay dawlad runa timaado celi xooga ad sleedo wad ku faanaysaa miskiin baad waad og tahay wallaahi ya alcadiim miskiin baad وانتي هرودو waan laga cishoonay maanta laga bilaabo xoogaaga hal la arko Muuse xoogaaga hal la arko nima tahay baa lagu tusaya Muuse asaamir baan ugu leeyahay aqligan waxaan sameeynaya muxuu ahaa baan sheekh baan maanta calankii waa joogtaa imka sheekh baa joogtaa calan wadaniyaba hal layga saarabaad tiri waad xirxiraysaa haday taasi xinaya kula tahay ku sii soco ninka dooranaya isaga